soo qorbartiisa Facebook ee Idris Cabdiqaadir Alfesto ayaa u qornaa sidatan waxaan doonayaa inaan dhawaan iskaga baxo fanka. Suldaan Seyraar Guhaad ayaa sheegay inuu doonayo inuu mar dhow fanka gabiyahaantiisaba iskaga baxo. Hadalkan ayuu kaga dhawaaqay isagoo live Instagram mareys ku bixinayay. Suldaan Seyraar fanki waa ka bixi rabaa hal ogaada bulshooy. Haddaba qoraalkan waa qoraal aniga shakhsi ahaantayda aan aaminay inuu ninkan wuxuu sheegay ay tahay mid xaqiiqo ah ayaan soo ogaaday inuu warkaasi yahay war jira isla markaasna saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada haysta. Haddaba la garee muuqaalka intaan ku soo gudbin taariikhda fanaanka Suldaan Seyraar iyo sidoo kale halkuu ku dhashay halkuu ku soo barbaar iyo waxyaabaha rasmiga ee fanaankan lagu yaqaano iyo 10kiisa heesooda ugu caansan heesiisa. haddaba la garee muuqaalka intaan u gudgelin haddii aad jeceshahay inaad mar walba heshid barnaamijyada xogaha ka tagaanimaha baraha bulshada fadlan la garee muuqaalkan sidoo kale subscribe saaro kambalelkana fursi oo uu ku soo gaaro muuqaalada ugu xiisaha badan ee bartaan soo gelin maasanid. sidoo kale qoraal ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa Facebook Abuukar Culus oo aad tawadatay qaaran oo aan majaajilista isla markaasna codkiisu ka qosliyay bulsho fara badan oo Soomaaliyeed. Abuukar oo ah shakhsi inta badan aan lagu aqoon inuu barihiisa bulshada ku soo qoro hadallada beenta ah ee taabanaya bulshada ayaa asagana wuxuu bartiisa Facebook ku soo qoray sidatan Suldaan Seyraar wuxuu sheegay inuu rabo inuu iskaga baxo fanka isagoo dhahayo waxaan ka soo tabadkeena fanki. haddaba qoraalkaasna waxa bartiisa Facebook ku soo qoray Abuukar Culus. haddaba daawada sidaad u aragtaa ka bixitaanka fanka ee fanaanka Suldaan Seyraar noo wax ku cabir like sar si aan u ogaano inta qof ay ku faraxsan in ay jecel yihiin in Suldaan Seyraar Guhaad oo fanaan Soomaaliyeed caan ka ah Soomaalida fanka ka baxo. fanaankan ayaa ku luuqeeyay saacana oo geeyga Soomaalida ruuxay waxaana kamid ah heestiisii Xamar Bila oo dhalaan kasto ku sugan magaalada Muqdisho intooda badan heesaha dhageystay karkooda hayaan. sidoo kale wuxuu qaaday heestii ay odayaasha fanka waag hore iska dhaafay isla markaasna qaraamiga iyo iskaga ceshin jireen ay dhagahooda ruuxday ee heestii Aamina. sidoo kale wuxuu fanaanku ku luuqeeyay heesaha fara badan gaar ahaan heestiisa ugu daawashada badan barta YouTube-ka ee Kal Ilaab taas ay daawadeen in ka badan 9,500,000 oo qof taasoo xir rabtay rikoorkii koowaad ah in fanaan muddo yar gudahood heestiisa ay daawadaan ku dhawaad 10 milyan oo qof. sidoo kale heesiis waxa ka mid ah heesta Haatan oo ahaatay oo ku luuqeeyay fanaanka waxaana kaloo ka jirta hees caan baxday oo ahayd heestii Aga ee ayadana mar baraha bulshada ruuxday iyo hees dhawaan maalmo kor uu soo saaray oo lagu magacaabo Haylada Degin iyo sidoo kale magacyo kale. haddaba Suldaan Seyraar Guhaad ayaa fankiisa wuxuu ka soo bilaabay dowlad deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya gaar ahaan degmada Goday ee caasimada gobolka Shabeelle oo ah xarunta jabhadda Onalif iyo sidoo kale caasimadii ugu horeysay dowlad deegaanka ay yeelato oo ay tahay magaalada Goday. sidoo kale waxbarashadiisa dugsiga hoose sare halkaas ay ku soo qaatay waxaana intaas kadib u soo wareegay magaalada la yiraahdo Jigjiga uu ka bilaabay dugsigiisa sare iyo sidoo kale waxbarashadiisa heer jaamacadeed. intaas kadib fanaanka waxay fanka ku midoobeen fanaaniin fara badan oo kamid ah fanaanka Xariir Axmed iyo sidoo kale fanaanka Faysal Morin iyo fanaaniin fara badan oo ka tirsan kooxaha ee ka jira dowlad deegaanka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jigjiga. Suldaan ayaa dhammaan fanaaniintaas ka soo caanbaxay waxaana uu heesihiisii ku soo caanbaxay kamid ah inkastoo la wada yaqaanay heesta Xamar Bila, Aamina iyo heesihii ka dambeeyay ayagana ruuxay baraha bulshada. Suldaan Seyraar Guhaad ayaa markii xukuumadda laga tuuray madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ee muddada badan xukumi jiray ee Cabdi Maxamed Cumar oo taqaanay Cabdi Ilay waxa uu go'aansaday markaas oo ahayd markii dowlad deegaanka isbedelka weyn ku yimid lana doortay madaxweynihii dowlad deegaanka ee la oran jiray oo hadda xukuma waa Mustafa Cagdare wuxuu go'aansaday inuu bandhig faneed u soo aado deegaanada Soomaalida. wuxuu ka bilaabay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland halkaas uu ruuxay show uu ku qabtay magaaladaasi ayna ka soo qayb galeen hablo aad u fara badan. showgaas uu ku qabtay magaaladaas ayaa ahaa show uu u talagalay inay ka soo qayb galaan gabdhaha oo kaliya waxaana intaas kadib u soo wareegay magaalada Muqdisho waxaana halkaas ku qabtay bandhig faneed wax yar socday oo ay dhacday markii barnaamijka fanka uu soo galay fanaanka oo heesiis ku luuqeeyay in ay mid kamid ah ilaalada fanaanka ay xabad ka fakatay halkaasna ay iskaga carareen dhammaan dadkii halkaasi kaga soo qayb galay ee doonayay in showga fanaanka Suldaan iyo Xariir ay kaga soo bogtaan.
intaasi kadib fanaanka wuxuu soo ambabaxay magaalada Kismaayo wuxuu ku qabtay bandhig faneed free ah oo uu qabtay bulshada halkaas ku sugnayd waxaana halkaas looga qaaday wareysiyo aad u fara badan oo ka qaaday gabadha lagu magacaabo Ilhaan Laki intaas kadib fanaanka wuxuu ku qabtay bandhig faneed sidoo kale magaalooyin